waxaan doonayaa hadii Ilaahay ka dhigo inaan halkan kusoo gudbiyo 4 qodob oo kooban oo la wada fahmi karayo. 4 qodob aan doonayaa soo gudbiyaa waxay kala yihiin qodobka ugu horeeya kaarka dhalashada waxa ku xiran shuruudiisa kamid ah in la helo qofka laga helo document haday mulkiyad tahay haday kaar codeyn tahay haday passport tahay haday waxyaabo badan oo kale la halmaala way farabadan yihiin ba document noqon kara qofkuna marka kaarka uu doonayo inuu soo qaato ee waliba burco joogo waxa muhiim ah inuu ilaashado oo documentiga uu soo qaato hore soo qaato kaasi waa qodob koowaad. qodobka labaad ee aan doonayo isagana ku daro waxa weeye in da'da la saxo waxa badan xafiiska noogu yimaado dad aanay u saxsanayn da'da dhalashadoodu macnaha qofku wuxuu ku oranayaa ma garanayo da'deedu intay tahay waxaas ka qor saxna ma runtii marka si scientific loo eego ama si aqoonaysan marka loo eego seen naqaano dhakhaatiirtu waxay ku bixisaa dawooyinka iyo waxyaabaha qofku uu qaadanayo caafimaadkiisa ku saabsan qofka da'da uu yahay markan documentkii ugu saxsanaa ee aad qaadan lahayd national ID-ga aad ku qaadato da'da ahayn lagu eego ugu yaraan marka ugu yartay waxa inaad qaadatay dawo khaldan oo ama da'daadii ka weyn ama da'daadii ka yar dadka inta aqoonta loo xafiican yahay hagto dadka inta ma garanaysaa ay wax tilmaami karayaan marka da'du waa muhiim. qodobkan ku daraya waxa weeye kaarka waqtiga aad challenge-ka u hayso ee aad free-ga tahay aad qaadato maalinta jeebku ku fiican yahay aad qaadato maalinta challenge-kaagu fiican yahay aad qaadato macnaha waa in maalinta waxa dhacda mararka qaar in xilliyo ay yimaadaan dad ciida ka badani intuba doonaya inay kaarka dhalashada markaa qaataan marka la shuruudaha hala maro ay u arkaan iyaga la ciriiriyo anagu shuruudaha haddii dadku badan yihiin iyo haddii yar yihiin intaba aan raacayna waana shay national security ku xiran waa amniga qaranka ku xiran tahay in kaarka waxa dhalashada iyo xogtiisa la saxaa waana wax runtii wasaaradda la wadaagto haddii dawladda hoose aan nahay ma ha shay anaga madax banaanadiisu si rasmi ah nagu wada dhameystiranto marka kaarkaas si shuruud ay kugu fududaato hadhowta aan cabasho kugu noqon waxa fiican in goorta aad chance ka hayso aad qaadato waxaan ku darayaa in haddii Ilaahay ka dhigo mar dhow chance dhow la siin doono oo wax la fududeyn doono waxa weeyaan goobaha qaar sida ardayda dugsiyada sare dhigata ardayda jaamacadaha ka baxaysa kuwa shahaadooyinka ku doontaan ay kaga xiran tahay kuwa waxay ku doontaan jaamacada dibadda ah marka iyaga ardaydan mar hoos u eegno warjeena insha Allah oo dib baan la soo wadaagaynaa dadka baabuurtiga oo kale iyaga haddii Ilaahay ka dhigo gaar baan u leeyahay doonaa maadaama liisamadu in badan oo kamid ay kaga xiran tahay. qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa weeye dadkeenu runtii way magacyo badan yihiin waxaan uga jeedaa way magacyo badan yihiin qof baa wuxuu qortaa ama laba qof oo walaalaaba waxay kala qortaan midna documentiga wax ku qortaa magaca aabihii ee naanaysta ah midna wax ku qoraa magaca aabihii saxda ah macnaha way magacyo badan yihiin dadkeenu marka laba qof oo walaalaaba ku imanaya qof wuxuu ku qoranayaa hebel oo deedna wuxuu qorayaa magaca aabihii waxa weeyaan magaca naanaysta ah midkay walaalina ka saxda buu qora mid kalena ka saxda buu qora marka laba qof oo walaalaha hadana kala magaca waa dhibaato dokumentiga xoog buu uga soo horjeedaa inta la saxo waliba waa ku celcelinaa la saxo baan rajaynaynaa qofku waxa muhiim ah waxay ka bilaabantaa dokumentiga saxdiisa waxay ka bilaabantaa kaarka dhalashada deedna waa in base u noqdo kaarku dhalashada waa in base u noqdo xogahaaga kala dhameystiran.